farxumay 5 bilood in la qarinayo kiiskeeda aabaheedna waliba ku soo noqonayo xaruntuu imanay jalbiib in loo xirayo lagu qarinayo uurkeeda gabood falka loo geystay ku sugan in la qarinayo taasina waa fool xumo waxaanu soo jeedinaynaa laamaha cadaaladda xuquuqul insaanka iyo Soomaaliland oo dhan aanu soo jeedinaynaa xarunta agoomaha Hargeysa baadhis madax bannaan lagu sameeyo in la hubiyo bidqabka carruurta ku jirta ee kale in la hubiyo hablaha kale ku jira dhacdadani mid maaha oo laba maaha in badan baanu maqlay wax ka dhex socda waxa ka dhacay xarunta 6 carruura oo ka gadooday oo ka mudaharaaday carruur xarunta ku jirtay oo la waayay oo iyagu ay sheegeen carruurtaasi in carruurtii walaalahooda ahaa agoonta ahaa xarunta la joogay in la iib geeyay in meel kale la geeyay aan kala garanaynin maamulka markii ay weydiiyeen carruurta cawdeena maxkamadda degmada la keenay min sanad iyo barbaa lagu xukumay xabsiga Madheeraa la geeyay waxa ka soo daayay niman loo yaraa oo dar Ilaahay sharci yaqaana kiiskaasina wali wuu yaalaa carruurta xaqii la geeyayna waa su'aal ku maqan Soomaaliland xaruntuna way dhax taala xarunta waxa ka dhacay inaan ka tirsanaa carruurta xarunta ku barbaartay ee bilaa aabaha ah in markii uu daadii qaangaarka gaaray uu guursaday 2 carruur aynu dhalay muddo kadib labadii carruur aha waalidkeed gabadhii in lagu yiri bilaa isir baa tahay bilaa aab calooliyow iyo murugo uu ka qaaday ilmahaas ayaa labadii carruur ahaa iyo isagaba inta uu dub ugu soo noqday xaruntii uu ka tirsanaa qolku deganaa ayuu labadii ciyaal ahaa isaguba isku gubay waa dacwad jirta oo la qariyay loo yaraana gacanta ku haya xaruntuna way qarisay waxa ka dhacay dhacdooyin fara badan oo xaruntu ay qarisay xarunta sababtaan ugu baahanahay in baadhis madax bannaan lagu sameeyo waxa weeyaan xaruntu waxa ku jira carruur agooma ummadda xil baa ka saaran madaxweynaha xil baa ka saaran qarankana xil baa ka saaran 3 su'aalood baa yaala sidee loogu aamini karaa xarunta maamulkeeda dhacdooyinka qariyay carruurta ku jirta xaruntaas sidee baynu bidqabkooga ugu kalsoonaan karnaa lagu dhex kufsaday ee la qariyay Soomaaliland carruurta agoonta ay dhex joogta intaasoo fool xumo ah ee ka dhex jira xaruntaas waxay u baahan tahay dareen ummadnimo damiir dadnimo iyo dawladnimo caadi oo cadaalada dambiilaha koowaad ay tahay in cadaaladda xanuunkeeda uu dhadhamiyo oo la keenaa waa maamulka qariyay dhacdooyinka noocaas annagu waxaan u aragnaa maamulka xarunta Hargeysa inuu madax ku tiyoobay oo aanu ahayn maamul dadka saddex un baa xidha ama damiirkaaga ku xidhaaya ama diintaada ku xidhaysa ama sharciga ku xidhay damiirkii muu xidhin meesha waxa ka dhex dhacay diinina ma xidhan waxa ka dhex dhacay sharcigu inuu xidhay u baahanahay maanta ummadda Soomaaliland xilkaas u yaal